warbixintani oo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland idinka diyaariyay suuqa idaacadda ama suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa warbixintani oo dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa gaar ahaan suuqa gobonimo aanu ku weydiinaynay qarannimada iyo waxa ay ka fahansan yihiin isla markaasina shacbiga aanu mid weydiinay fahankooda dhinaca qarannimada iyo waxyaabaha ay ka fahansan yihiin ayaa waxa kamid ahaa waraysigii aanu ka qaadnay dadweynahaasi ku dhaqan suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa qarannimadu waa dawladda iyo shacabkeega oo israacayde u tiirsanaada oo wax walba iska difaaca oo wadanka iyo dalkaba wada ilaashada qarannimada weeyaan wadanka isku tiirsanaado baan ugu aaminsanahay iyo shacabkooga oo wada socda iyo dawladooda iyo wadanka isku dhan oo ceerceerka iyo waan ku dhaaday macaaradada iyo wax walba laga ilaashado la wada ilaashado dhinac laga wada taagnaado shakhsiga ilaa dawlad ilaa shacab maxaad ka fahansan tahay qarannimada nida kollay qarannimadu laba tafsiir bay yeelanaysaa kolba dhan markaan kala qaybino dhan waxa weeye dhalashadii qofkaasi qaran buu ka soo jeedaa waxa weeye nation in qofkaasi dabada ku hay midna waxay noqonaysaa mid umadnimo oo identity-giya oo imika bulshooyin baa jira adduunyada dhowr wadan ku kala jira kuwaasoo jinsi bay wadaagaan laakiin qaran ma wadaagaan marka kollay qarannimadii kollay waxa hoos imanaysaa dawladnimadii marka kollay qaramada bulshada caalamka wala waxaan u maleynayaa wadamada caalamka waxa lagu qiyaasaa 109 wadan baa 149 oo Ruuso Suudaan baa gaarka ka soo bixi marka kollay wuxuu yeelanayaa definition-ka ama marka la eego sharaxaad ahaan midaas mala ugu dhow in la yiraahdo definition-ka ma saas u noqonay haddaba faa'iidadeedii waxay noqonaysaa qofka markaynu isla garanno qarannimadii inay tahay nation-ka uu qofka hoos imanayo inuu helo xuquuqdii dadka kala helayeen ama qaranka uu qofka muwaadinka ay qaranka ku lahaa taasoo ay ka mid tahay waxbarashadii ay ka mid tahay caafimaadkii adeegidii arrimaha bulshada oo dhan ay ka mid tahay ilaalinta ammaankiisii marka kollay dhammaan arrimahaas oo dhan ayay noqonaysaa faa'iidooyinku ka faa'iiday waxaa dhinacayga taagan gudoomiyihii suuqani idaacadda Xasan Daawud oo aan wax ka weydiin doono qarannimada iyo waxyaabaha uu ka fahansan yahay isagoo si qoto dheer inooga warrami doona Xasan Daawud ku soo dhaw telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waan dhawahay walaalaad iyo aad baan u dhawahay waxaan idin leeyahay Allah idin barakeeyo qarannimadeenu waa taaynu ku taaganahay waxa weeyaan qarannimadu waa taa ummadaasi ay ku dhisan tahay ee maanta meel dheer laga keenay maantana nimco Ilaahay baynu ku jiraa waxaanu nahay suuqii maalintii dhaweyd gubtay imika waanu ka soo kabannay alxamdulillaah baanu ku jiraa qarannimaduna waxay ka mid tahay maadaama oo laba shirkadood oo Ilaahay barakeeyay ay maalintii dhaweyd aanu gubannay iskaga ag taageen oo dabadeetana ay kharashkii naga gubtay wixii ay noo celin karayeen ay na siiyeen oo iyagana aanu u ducaynay waxaanu leenahay labada shirkadoodna Allah idin barakeeyo qarannimada Soomaaliland waa qarannimadu ha jirto ha joogto waxa weeyaan maanta haddii aynaan cadawgeena iska ilaalinin meelo badan bay nooga soo galayaan cadawga inagu inaynu isku duubnaano macaarid iyo maxaafidba aynu isku duubnaano inuu dalkeena ilaashano waayo ubaxeena soo koraya nabadda ayay wax ku yihiin kuwa maanta qalin jabinaya nabadda ayay maanta quruxda ku leeyihiin nabadeena iyo dalkeena ayaynu ilaashanaynaa gacantaana nabadaynu ku ilaashanaa gacantaana waynu ku shaqaynaynaa maxaad ka fahansan tahay qarannimada bismillaahi raxmaani raxiim qarannimadu waxa weeyahay saan ka fahansanahay waa midnimo wadajir iyo dadka oo hal meel uga soo wada jeeda qarankooda iyo dalka ay markaasi ay ku nool yihiin taas weeye qarannimadu dadkaana iska leh ilaashada oo hadiyo jeer dhowrta horta qarannimadu wuu macno badan yahay waana erey runtii macnihiisu aad u weyn yahay waa dawladnimo waa ummad hal qodob ku wada midaysan oo mabaadi iyo fikrada isku keentay oo calan samaystay
sida iminka qarankeena Jamhuuriyadda Somaliland oo runtii qarannimadiisa la soo noqday 1991 dadku ma xusaan 26 Juun 1960 inaynu qaadanay qarannimadeena oo aynu hayn dad calan leh oo ummad maaragtay halgan iyo ku soo calaamaashay wadajir alxamdulillah maantana waynu haysanaa midhaheennii waxaanaynu u baahanayn in ummadeennu maaragtay meel uga soo wada jeedo qarannimada wada ilaashanno cadowgeennu wuu fara badan yahay maanta maalin aan ka fiicannahayna ma jirto waa Mustafa Axmed Samakaab iyo Cabdilaahi Axmed Aar telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Hargeysa.